telefoonkaas waxyaabaha ugu daran ee ku qaso oo shaqooyinka aan ka qabsan laadahay way hadda anigu saacad iyo bar ama 2 saac wax la mid ah laga yaabaa inaan wada joogno haddii telefoonkaas saacadaas iyo labadaas halihii yare hadda aan wada hadlaynay haddaan hadda eego intaasoo message intaasoo whatsapp intaasoo call ayaa saaran laakiin intaan silent ka dhigay ayaan gebigiiba afgembi u dhigay xataa sidan ma saas gebigii u dhigay isagoo dhan seexi halka iska dhig si uu ku qasin waayo hadda waxaan ka wada hadlaynay focus Soma haddaan adiga focus ku saarin aniga waan lumaya markaas laga yaabaa waxaan ka hadlay inta iloobo inaan qashin iyo waxyaabo kala sheego soo suuragal ma so to get focus ba muhiim hadda telefoon aan soo dhacay intaan hadlaynay telefoonka qofkaas way ka fakan kartaa way iloobi kartaa ama way iloobi karaa inuu silent saaro laakiin waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah noocu doona ha soo dhaco afartii quadrant oo sheegnay quadrantiga ugu dambeeya not urgent iyo not important ayuu inta badan soo galaya marka muhaadarooyinka noocan oo kale ay socdaan qodobka shanaad ee muhiimka baro ina note qoratid muhiim waa kulli hadda waxa idin ka muuqdo ma sha Allah qof kasta qalin warqad u haystaa gabdhaha qaarkood wiilasha qaarkood mobilekooda wax ku qoraan which is very beautiful oo note inay isticmaalaan oo wax ku qortaan laakiin always ina wax qoratid waa muhiim bari baan heli bari baa la ii soo diray yaa ku yir bari baa lagu soo diraya there is no bari ma jirto get it now hadda qaado qoro pointyadaada muxuu ahaa ii sheeg wax alla waxaad dafan kartay hadda dafo kuna amal fal barito arinta note ka in la qorto caafimaad badan ay ku jiraan ولذلك واتقانان أرضيدا مركا الدروس تديارين إنسان عشر كإن لا أخريه امتحانك مركا لو تديارين كهالليا إن لا أخريه كليا وحامسك هذا وقفي عن إن لا قرأ وهذا أركتين وقاعدوينك يمينها مهمك حداد سوب بحسد ودب أقرتد مسكح ذي كقرمية حتى قدام الريتنشن كأي إن هذا هيستيو دب أسوأ حسوستيد هذه probability أبدا هي كس محوها كبدا أنت آخر سكلي وهلا مرك take note مرة والبا إن النوت قرأتي دوا مهم قرأ الله ذا كاركود مرك هذا آخرين يصير برا وحول بالله ما آخر يصير قطر دير scheming وحلا ده هاجرة ويا ما كاركود وحكاية بهاي إن إيش مريس سمعت كذا ليس دير أو حلا سوقري أو كورونا فيروس سنة وريدي مكتوب على المها وصوص سعودية يسدن الله ودم الدرس كوي مدالي الحضنة ما أنا ولا بحبال الشيء روح بقدرتك الواء أبوري إلهي سبحانه وتعالى يا لقنا بتقول شيء سبب سماه مدفع يو هرقب كستا يا ما عكستو الله بحيو إسقى نبتقولين جري حضنا إنسان كنا بتقولين لكن قرال دير على سوق قري وحال ويري وردك دقة كورونا فيروس كسابسن interesting سماه وركو حلقة ولا بوك صدق بقينو يهاي وقتها كود الله من باراجراف كود آخري سوبو دحدا كفيري قضبها داي قرين سدح دافة قضب كفيري جو كسع سواء كان you don't have to مو باهن scheming كمرك واساس وحاوبها أنت هاي سيد نقف أقويها عملنا واقرس important points كأنت تفيرسد كدمنا move خارج الصعب وقت قوينا هيا أو سؤالها رمينا فرناه دوال اللي راه وحنا رمينا كلا فهمناه لبضان أما لبضان قبلات قف مشغول سن يقف productive نوع آتاي أدال ربعين الشيء إلهينا كعب سيا بينا الشيء هذا مستر بيزي تاي نيو أنا جواجو أي مستر بيزي هيدا هذا تاي مستر productiveنا مستر productive أيانا هيدا ده كبيزي جا وعيابها لوي قانا وحاكم إذا نفتو ذي وحي كداليان أرماء مهمة هاي waxay ku daalaan waxyaabo aan aad muhiim u ahayn walidaalika waxa arkaysaa saacado tiro badan inuu ku bixinayo fiirsiga musalsalkii xaafada ka socda I don't know musalsalku u dambeeyay magaciisa sheeg ka u dambeeyay waxbayaan la cabsan xaafadaha waa ka socdaan waa ognahay moogta ku dhufu magaciisa muxuu ahaa wakaas musalsalkaas laga yaabaa 2-3 hours in la qaato lagama baaqan karo sabti iyo axad ma aqaan habeenada ay soo galin kaliya ayaa neefta ka soo booda inta kale xataa wararka lama fiirsan karo maxay ka helayaan tusaalaha wiilasha ku soo haray sports baa socdaal
mararka qaarkood waa lagu tuurtaa mararka qaarkood waa la fiirsadaa wax dhibaato badan ma lahan laakiin wuxuu haday ku noqdaan dhaqan taasa mushkila less important point ayaan dhaxasa ciyaar feer baa jirtay marka ninaan jeclaa oo aan la socday oo khabiib Nurmagomedov laho oo Ruusha oo muslim ayaa dheelay markaas caafadu waxay ku ciyaarto wada dhageystay caawa wax hadli kara lama arkaan ana caawa galay hawsha 3 saac ciyaarta soo galaysa waa war odayga wax laaba leeyahay ma laabina ciyaarta ciyaal qatar waadi waqti waxaan iri waa baad alla ku raba waa la baryayaa salaadaha raba inuu dukadaba inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha siiyo runtii dhaba inaga ahayd because aad aan ula jiray ninkaas every point every step oo habeenka qaado iyo meel walba sida anoo haduu alla ku war qaxwa aan soo sameystaa ku qaxwa wala faysa mararka qaarkood saas ugu tuura mushkilad badan laakiin waxa la diidan yahay less important tasks maanta waqtiga hadaa ku lumisid it's no good laakiin dadka productive ka cagsigooda fiiri waa kuwan maxaa lagu yaqaanaa energy-gooda iyo resource-gooda waxay uga faa'iideystaan si wax ku oola waqtigooda ka faa'iideystaan waqtigooda waa ku faa'iideystaan caawa 12 kan haysana fiiri tusaale oo ku siina ninka busy-ga 6 saac weynima laga yaabaa inuu ciyaar ku gaaray isoo daalan uu seexday ninka productive ka maxaa lagu yaqaanaa hatta haduu ciyaar ku gaaray markuu seexanayo intuu qabaysto 2 rakacood sunnada ahayd oo salaada ka hor halkiisa witrigu tuurtaa bismillaahi wa rahmaan hatta moogtahay soo dhawow hatta adig waqtiga soo qayb ma lumin 2 rakacad iyo hal witriga gaw ka siibal bari subax salaad subax caatay ka noqon doontaa waa loogi oo waxaad kici doontaa 12 saac wax la mid ah walba tan qabo haye wax una ku haraan marka arinta muhiimka waxa waay kiskis u baro iska yaray dhaqamada aad isleedahay busy bas aad ku tahay marka busy inaad noqoto ma u baahan waxaad u baahan tahay inaad noqoto productive wax ma soo saarto qodobkan si fiican ila fiiri dadka busy waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamid ah noloshooda hadafka ay kala yihiin ma yaqaanaan they don't know ma u muuqdo nolosh inay nool yihiin way og yihiin kaliya busy people ku ma yaqaanaan laakiin dadku markay productive yihiin maxay yaqaanaan way og yihiin waxay u socdaan waa u muuqdaa jaamacadda markay dhamayso iskuulka markuu dhameeyo jaamacadda markay dhamayso guurkeeda u muuqdo guurkiisa u muuqdo ciyaalku dhali doona u muuqdo waxa u muuqda si u shaqeyn doona everything clear waa yes markaas subax kasta markuu soo kaco wuxuu leeyahay ma sha Allah waa socda anigu bismillah tawakkalna ala Allah waa kan war adiga inta u socotaaniyo duwalku ma waalanta adiga ma waalno maalinta ay ku arkaan inaan waalanta had guul ugu dhowda la socodseedo maalinta ay ku arkaan inaad isdardartay iyaga qolada waalan kuwa aamusan oo meelaha fadhi ma aragto ku fiirinay kuwa ku dhaaya iyaga waalan adiga ma waalin arinta muhiimka oo kale oo aan rabnay sheego waxa kamid ah dadka busy maxaa lagu yaqaanaa hadalkaani dhahan I am very busy I don't have time waqti ma hayaadan mashquulsanahay ilaahay kugu dhaarey fiir ninka odaga ninka ila fiir waxay waa ku soo dhaweynaa suuq si fiican ma aragtaa ya master khafiifo computer dul fadhiya meeshaas waxa u yaala cafe fiirsanay waqti ma hayo leey waxa laga yaabaa inuu game dheelaayo hadda laptopkiisa hadaan dhax gal lahayn wax baasa u shidan waxa kama jiraan wala waqti ma hayo ku leeyahay no waqtiga aad noogu yar waligood waqti ma helaan mo Mr Busy Allah ana u sheegay ardo waxaan dhahaa dad waxa jira busy in being busy ma qasho liga waxay ku mashquulsan yihiin inay mashquulsan yihiin وقالوا كبر عليها 4 واي kuwa dhintay waayo in lagu dukadaa laakiin dadka productive ka maxay yaqaanaan fiiri ninkii hore computerkiisa waxa agii la wadaarkiisa ninkan fiiri marka wax weydiistad muxuu ku leeyahay okay no problem dib ma lahan I will manage ana habeynay mushkilo male laakiin miiskiisa waxa saaran fiirso fiirday bugaagta inta saaran qaybaha dhameystiran kuwa xirxirno halkaas ka kubshinkiisa halka u saaray nin shaqo waay waxba u bilowday waxba u dhameystiran busy waay laakiin ninkii hore marka eegtid muxuu ku mashquulsan yahay wax uu shaqahayo lama arkay waa kan ninkan khafiifo waa saaxiibka waa samada saaxiibka maxaa laga qabanaya marka I don't know marka qoladaas kulay inaga ma nihi waa ogaa kulliga waa fiicannahay marka ilaahay idinkiis dadka busy-ga waxyaabaha lagu yaqaan waxa kamid ah shaqadoodu waxay ku lunsadaan ama waqtigooda waxay ku lumiyaan meelaha aan caadiga dadka u ahayn meelaha aan wax tar kala ahayn ciyaar ha ahaato game la fiirsada ha ahaato jimca meel la aada ha ahaato haasaabo bilaash ha ahaato wax bay ku bixiyaan oo faa'iido badan aan lahayn kuwan laakiin hadafkooda waxay saaraan wixii iyaga anfacaya mustaqbalkooda fiiriday ninkan odaga sawirkiisa soo dhaweys ulbu gacanta ku wataa
dhac alaab yar oo soo qaatay shumac yar ka shidan aroos camalu ku mashquulsan laakiin saaxiibka qafiifow isaga caadi ma aha marka fiirisid fiiri computerka u shidan jaartii soo bandhigo wuxuu leeyahay horumarka fiir shaqada aan ka sameeyay dhac graafiya kala kacsan nin wax qabtay waa ugu yaraa nin wax qabtay inagu marka waxaan rabnaa marka qaybta midigta kuwa ah waa productive people kuwa waqti badan la wada qaadana aad u fiicneed aad iyo aad u mahadsantihiin wixii su'aalaha maamulka u furayna wajazaakumullahu khayr assalamu alaykum